waxaa maalintii shalay tahay degmada Carmo lagu soo dhaweeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Galan gudoomiyaha oo ka soo kictamay deegaanka Timasho asagoo soo maray deegaanada Balilidin Barako oo Feen Kalabe iyo Jingada asagoo intaasi lagu soo dhaweeyay ayaa gudoomiyaha ugu dambeyntii gaaray degmada Carmo oo si diiran halkaasi lagu soo dhaweeyay soo dhaweynta gudoomiyaha ayaa ka qayb qaatay odayaasha garadka iyo dhalinyarada iyo haweenka gudoomiyaha ayaa soo dhaweynay go'aan qaad kadib goob fagaaraha kula hadlay bulshada ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay aqoon-yahan Maxamed Khoorshe iyo gudoomiyaha ururka dan wadaag Cabdicasiis Faarax kale iyo waqtiga la socdaba marka hore waxaan idin leenahay ku soo dhawaada degmada Carmo soo dhaweyn kadib shacabka Carmo ilaa iyo saaka waxay u taagnaayeen aroortii sidii soo dhaweyn lahaayeen sababtana waa garanaynaa waxa weeye shacabkani muddaba hadda wuxuu ku jiray kacdoon iyo dhibaato iyo waxyaabo baran oo xuquuq u leeyahay oo ka maqnaa sida la socotaan mudane Cabdisamed Maxamed Galan iyo ragga kale ee la socda ee degmadan u dhashay waxay muddo ka badan 5 bilood qarka u jireen waa xuquuqdiina weeyay waxa idin ka maqan alxamdulillah maantay degmada Carmo waxaan ugu soo dhaweynay iyagoo soo diyaar garoobay iyagoo u soo diyaar garoobay in ay raadiyaan oo soo dhiciyaan si sharaf iyo cis iyo karaamo ku jidho oo aan baryo lahayn xuquuqdii dadka deegaankan ka maqnaa dadka deegaanka Carmana aad baad ugu mahadsantiin sida u soo dhaweyseen aad baa ugu mahadsantiin sidii aad noogala qayb qaadateen markaan idin yeeray inaad soo dhaweynta ka qayb qaadataan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay suldaanka Salaadiinta Jubbaland oo sheegay inuu soo dhaweynayo kacdoonka ay wadaan Galan iyo xulufadiisa Carmo iyo ciidankooda geesiyaasha ay hadda u yimid inay maxay ahaydey amniyada fawaadari amniga siiyaan amniga inaga u wada baahan magaaladan iyo raggan hadda yimid ee soo galay ee lagu soo dhaweynayo ciidanka ah waa raggii magaaladan u dhashay ee amnigeeda inay lafdabar ka noqdaan ee waajibka ku tahay waxaan rabaa inaan idiin sheego nabadgelyaad haysataan deegaanka Puntland nabadgelyaad haysataan anigu waxaan ka imid Jubbaland Kismaayo meel la yiraahdo markaan arkay sidaad hadda meeshaan u joogtaan oo isugu dhex jirtaan oo waxa weeye wax cajiib ah ila noqon annaga dhinacayaga saas lama noqdo laakiin waxaad tii dad nabadgelyo haysta waxaan anigu idin leeyahay nabadgelyada adkaysta عند السعيد أيها هالكاسي كهذا شو يدو سوجد زي تحبران برا gudoomiyaha waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Galan ahna hadda gudoomiyaha kacdoonka gobolka Bari waxaan ka mahadcelinayaa oo aan la qabaana xiriirka saaxiibadayda iga horeeyay sida sharafta leh oo gobonnimada leh oo muhiimada leh oo dadnimada leh oo ilaa saakay aad u taagnaydeen haddaad tihiin shacabweynaha degmada Balilidin bannaanka magaalada cafwan degmada Carmo aad u taagnaydeen bannaanka degmada iyadoo ay tahay maalin Ramadaana kulayla ah haddana aad u soo banbaxdeen inaadna soo dhaweysaan oo ka mahadcelinaynaa farxadaan la soo koobi karin bay noo tahay maantay oo ah maalin salaada ah bisha ay tahay 22 inaan idinla qaybsano idinla wadaagno farxadda iyo kulaynta
halka aad u hayseen wiilashii u baxay bannaanka iyaga oo ka gadooday iyaga oo ka dhiibiyey iyaga oo ay u dhadhami weysay waxa ka socday gudaha puntland qaabka loola dhaqmayey deegaamada tan qaabka loo midabta kooray oo cunsuriyaddu ay ku jirtay inaha iyo ina ka badan iyaga oo ka dhiibiyey darteedna bannaanka ugu baxay maantay inaad ku soo dhowaysaan waxay idinku tahay waajib iyaguna waxay u yeesheen xaq waxaa hortiinna ka muuqda maantay ciidamada soo celinta sixidda turxaan bixinta puntlandkii dhabka ahayd oo xuduudaha la yaqaanay lahayd oo ahayd tii la wada dhistay 98 oo kala wadaagga lahayd oo dhaqaale wadaagga lahayd oo timidda lahayd oo power sharingka lahayd inay dib u saxaan inay ku celiyaan meeshii ay joogtay oo wanaagga ahayd iyo meel ka wanaagsan waxaa idiin muuqda maantay ciidan iyo mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin awooddeeda leh u diyaar garoobay inay hawsha iyada ah fuliyaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in arrintaasi ay wanaag ku dhammaato arrintaasi inay ku dhammaato rabitaanka shacabka inay arrintaasi ku dhammaato midnimo inay arrintaasi ku dhammaato guul in la gaaro hadafkii kadibay bannaanka inay ciidamadu ugu baxaan in la gaaro baanu ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaynaa sidaa uu tilmaamay sarkaalkii igaga horreeyey hadalka ma aha markii koowaad mana noqon doonto markii ugu dambaysay oo aynu wada hadallo ama iswaraysanno waxaa jiri doona shirar joogto ah waxaa jiri doona shirar qaybaha kala duwan ee bulshada aanu la yeelan doonno xogahooda aanu ku dhegaysan doonno iyo talooyinkooda annaguna aanu ugu soo gudbin doonno waxa ay nala tahay iyo sida oo cunsuriyadda lahaa inaydan ku dhaqmin waa ka dardaarmayna waxaannu sidoo kale aanu ka dardaarmaynaa in la ilaaliyo midnimada in la ilaaliyo wanaagga in la ilaaliyo amniga in la ilaaliyo horumarka intaba waa ka dardaarmaynaa magaalada tan ama degmada tan carmo waa magaalo istaraatiiji ah waxa ay dhacdaa oo ay ku taallaa goob istaraatiiji ah waa in la ilaaliyaa oo wax badan la xeeriyaa maritaanka dadka waa in la ilaaliyaa shuudaweynta dadka waa in la ilaaliyaa waa inay noqotaa magaalo dadka u dhaxaysa waa in laga dareemaa cadaaladda ay leeyihiin dadka magaalada daddegan waa in habdhaqankeeda laga dareemaa waxaannu ballan qaadaynaa haddaannu nahay ciidankii iyo siyaasiyiintii bannaanka 6 bilood jiray oo u maqnaa masaalixda iyo danaha shacabka idinku aad ka midkiin ay leeyihiin waxaannu ballan qaadaynaa hadduu ilaahay idmo ilaa ay dhammaystirmato oo qof walba xuquuqduu lahaa uu fadhigiisa ku helo kii ardayga ahaa uu helo ardaynimadiisa hadday tahay scholarship iyo hadday tahay waxbarashada qaybaheedu kala duwanaa hadday tahay marka waxbarashada dhammeeyo shaqadu xaqa u lahaa kan ganacsan inuu ka qayb galo siyaasadda inuu ka qayb galo iyadana xuquuqdeedii uu helo ganacsiga iyo mashaariicda ii jeclaa inuu ka qayb qaatan waxaana iyagana kula dardaarmayaa inay noqdaan ciidan dishibiliin la sidii laga bartay ciidan cadaaladda iyo sinnaanta iyo kala dambaynta ilaaliya horseeda midnimo iyo xuquuqid la'aan xuquuqda maqanka iyo midnimadii ay ku dooneen ku dhammaystira
mar labaad iyo mar saddexaad waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa dhallinyarada iyo hablaha degmada tan iyo magaalada tan oo qayb bidaax leh ka qaatay kacdoonka kan taageero lama ilaawaana ka geystay mar labaad iyo mar saddexaad aad baad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah aadna siiseen hadday tahay soo dhoweyn iyo hadday tahay marxabayn iyo hadday tahay inaad noo muujisaan garab iyo gaashaan inaad noo tihiin aad baan uga mahadcelinaynaa dhammaantiinna waa mahadsantihiin shaqooyinkana waa soo dhowaynaynaa waana ka mahadcelinaynaa soo dhoweynta iyo soo dhoweeyeen waxaan uga baxayaa intaa iyo is-aragyo badan u soo noqnoqda waxaad ku jiifataan amni waxaad ku soo toostaan amni ciidamada qalabkiisida hortiina taagan waxay u taagan yihiin sidii aad nabadgelyo ugu shaqaysan lahaydeen ugu noolaan lahaydeen ugu seexan lahaydeen dadka u dhex mari lahaydeen saacaddan laga bilaabo waxaan odhan karaa warbixintan waxaa idiin soo duubay idiin edhid gareeyey idiina soo daayey anigoo maxamed faarax baaluda